siyaasi Axmed Xuseen Soomaali oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Haldoor ee magaalada Boorama ayaa waxa uu eedo culus soo jeediyay xisbiga mucaaradka wadani waxaana waxba kama jiraan ku tilmaamay eedo maalmihii u dambeeyay xisbiga mucaaradka wadani ay u jeedinayeen xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye waa sidoo hadalka u dhigay geesta kale waxa uu eedeymo culus tusha uga riday Ismaaciil Hurre Buuba oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani una ku tilmaamay eedeymaha xisbiga muxaafadka kulmiye u jeediyay inay yihiin kuwa waxba kama jiraan waa kana daba Axmed Xuseen Soomaali oo arintaasi ka hadlaya xisbiga kulmiye ee wadani uu ku eedeynayo isaga ayaan ummadiisii u naxaynin isaga ayaan dalkan iyo dadkan la jecel ka lahayn waxaan leeyahay qolada wadani siiba Ismaaciil Buuba ninka leeyahay ee dalmi ma aragtay ab Soomaaliya hoos dhiga waxa leeyahay Ismaaciil Buuba waxa xukuumadda ku eedeyso tiraada dad iyo dalba banka male xisbiga kulmiye taas waa mid ma aragtay abeen ku sheegtay adiga ayaa amraha aan af Soomaaliga qaabkii loogu hadlayay wali waxay ka haysataa qaabkii berigii hore af Soomaaliya aad kula talin jirtay arrimaha ma aragtay marka wixii u dan maanta Soomaaliland ba joogtaa xisbiya qaran ba dhex joogtaa waxa weeye mabaadiida iyo hadalkaaga sidii berigii hore talada Soomaaliya ku siin jirtay haka bedelaan baa Ismaaciil Buuba ma aha Ismaaciil waxa xukuumadda aad ku eedeysay xisbiga kulmiye iyaga ayaan dalka iyo dadkaba ayaan ka ahayn ma aragtay aan kala hayn يعني رجاء كلهي وحسب كرمية وحسب ديمقراطية وحسب Somaliland وحويا وحسب شعب Somaliland أي تاجرسيين وحسب كسمتن هرماركا يما دركتي يهيكسي عركتين ويكسر إنه ضلكن يضطكم وهرماركاسي حسب كرمية يهو كان مديسو يهو مشرحين تيسو وكوا مات كوا الله هاي dalkan iyo dadkan kamana la xijco waa kuwa saacadii aad wax ka hadlaysay saacadii la midka ahayd dadkii abaaraha dhex joogay ee biyaha iyo taakurada la dhexmaray xisbiga kulmiye waxa uu go'aan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay go'aan ku qaateen inay diyaar u yihiin inay doorashada xilligeedii ku dhacdo haddii ay sababooyin iyo haddii ay yimaadaan ma aragtay markaas wax dib u dhigi karaa taasi dawladda iyo komishanka ayaa ka shaqeynaya xisbiyada adigu midkooda adu hadlayso wixii ay soo saaraan ayaa markaa shacab ay ku dhaqmi doonaan balse laakiin xisbiga kulmiye isagu mar walba diyaar ayuu yahay inuu doorashadii xilligeedii ay ku qarsoonto taa waxa xisbiga kulmiye ajandiisa uu soo dhigaya wax weey haddii imika uu xisbiga kulmiye oo lahaa doorashada abaaraha jira doorashadii dib u dhigno mucaaradka lagama fadhiisteen waxay ku hadli lahaayeen oo la garanay maanta markii xisbiga kulmiye uu yiri doorashadii diyaar baan u nahayna mucaaradka haddana dhaka kale uu rooyay wuxuu leeyahay doorashadii oo ma aragtay xilli munaasib ahayn ودونيو إنه حسب يكون بيقط حسب وطني يا معارض نمو وصوم الري وقرر ينام معارض ويعني هي أجنديس وبريان معارض كايا هاينا يعني كلمية معارض كاها يا يقاب كان يوحد ليا قلنا وطني وما إنه هذا جينا وحبا حيري لكن يوم ما توحد كسفوا بين inay kala garan waayaan waxa la iyo waxay ku hadlayaan iskaga laaqad tahay taasina maxaa ku keenay naxdina ay ka naxsan yihiin xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha uu ku leeyahay gobolada Somaliland Xuseen Caatiye Jaamac Xuseen Gaafne shabakada caalamiga golaha 19 magaalada Boorama